السلام عليكم أخيارتي meel walba joogtiin oo mar kale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba ka cusub suuqa Man United oo 60 milyan ku doonanaysa David Alaba City oo Barcelona iyo Chelsea ka dulqaadaysa da'yar xulka Argentina u dhashay Arsenal oo loo daba maray laacibkii ee carboonatay Barcelona oo horyaalka Italy ka doonatay daafac City oo 60 milyan ku doonatay Paulinho kana dulqaadaysa Bayern Arsenal iyo Liverpool iyo Arsenal oo gacanta ku dhigta markan Vinicius Salah iyo aaditaankiisa Sacuudiga akhbaarada ayaa ka soo kordhaya Arsenal waxay doontay weeraryahanka Bournemouth dagaalka loogu jiro Bruno Guimaraes oo markan meel adag sii maraya Barca City wala Liverpool way isku wada hayaan hadii aan muuqaalka ka hesho wala garay kanaalkana subscribe noo saar hadii aanu ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Manchester City kadib barbarihii ay la galeen kooxda Palace waxay ku kaceen suuqa waxayna rabaan xidigo dhowr inay soo qaataan xirta uu hogaamiye macallin Pep Guardiola wuxuu taagan yahay waxaan u baahanahay markan rag dhiig cusub oo koob la'aan oo caaboon oo aan kula tartamo dadkan waxa halkan ii taaganba rag dheregsan oo aan shaqo diyaar u ahayn markan waxay u dhaqaaqeen ninka la yiraahdo Joao Paulinho oo xulka Brazil iyo kooxda Fulham u ciyaara laacibkan waxa ku dhaweyd Arsenal Bayern Munchen iyo Liverpool laakiin haatan City oo 60 milyan wadata ayaa suuqa soo gashay rabtana January inay laacibkan Fulham ka qaadaan kooxahan ayayna rabaan inay ka dulqaadaan walow Premier League kooxaha ka dhisan Liverpool iyo Arsenal ay laacibkan si saayid u daneynayaan oo Mikel Arteta laacibkan target number 1 ayuu ka dhigtay Bayern Munchen Thomas Tuchel ninkaas sidoo kale target ayuu yahay Jurgen Klopp sidoo kale target ayuu yahay Pep Guardiola hata soo galay wuxuu rabaa laacibkan inuu 60 milyan jaab ku qaato oo ayagu dalabyo may gudbinaynin oo waa rabnaa ay taagnaayeen laakiinse rag lacag wata ayaa markan meeshii yimidba dhinaca kale Man City waxay rabaan laacibka xulka Argentina iyo kooxda River Plate ninka lagu magacaabo Claudio Erjavo laacibka waa 17 jir xulka Argentina da'yarkeeda ayuu kabtan u yahay laacibkan ayay rabaan inay ka dulqaadaan Barcelona iyo Chelsea oo laacibkan wada daneynaya laacibkan 25 milyan ayaa lagu qiimeeyaa Barcelona ayaa rabtay laacibkan waxayna ku rabeen 25 milyan inay laba qayb u kala bixiyaan laakiinse Manchester City ayaa diyaar u ah laacibkan hal mar inay lacagiisa wada bixiso sidaana ay ku qaataan Chelsea iyo Boli xirtiisa sidoo kale laacibkan way daneynayaan lacag fara badan ayayna rabaan inay ku faraqaan marka Man City isagu wuxuu rabaa in uu ku biiro Manchester City laacibkan walow Barcelona xataa dhinaceeda loo xaqlinayo laakiin City way u cadcadiin markaan gacanta ay ku dhigi karaan ninka dhinaca kale kooxda kubadda cagta Chelsea dhib badana Chelsea ayaa Arsenal u daba martay laacibka lagu magacaabo Victoria Carragher kaasoo Arsenal ay si caarboonteen oo Sporting Lisbon si hoos u heshiiyeen Chelsea ayaa weeraryahankan haatan diyaar u ah inay 86 milyan ay ka bixiso Arsenal ay ka dulqaadaan Arsenal iyo Sporting waxay ku heshiiyeen lacag gaariga 85 milyan laacibkan in laga bixiyo laakiin Chelsea ayaa u daba martay oo markaa diyaar u ah 86 milyan ilaa 90 milyan ba inay farta ka saaraan Sporting Lisbon sidaana ay laacibkan ku qaataan dhanka kale Manchester United oo hore Real Madrid uga soo qaadatay Casemiro lagana soo siiyay 70 milyan ayaa markan waxay aadayeen Bernabeu iyagoo ka doonaya laacibka lagu magacaabo David Alaba oo markan ay ku doonayaan 60 milyan walow kali isku ahayn dagaalka loogu jiro David Alaba Real ayaa rabtay inay iibiso laacibkan Juventus ayaana dagaalka ku jirta laakiin Manchester ayaa diyaar u ah lacagaha Madrid ee ku rabta laacibkan inay bixiyaan Manchester cashirka ay sabaran arimihii Casemiro iyo 70 milyan ciyaaryahan la soo jafjaftay in la siiyo haatan David Alaba oo Bayern iyo Real Madrid ee soo meerteen ay rabaan 60 milyan inay ka bixiyaan dhinaca kale Arsenal ayaa 51 milyan markan kula heshiisay kuna dhow inay la wareegtaba laacibka lagu magacaabo Gonzalo Vinicius wiilka reer Portugal mar dhow January markuu soo furmo hadii aan maqasho Vinicius si rasmi ah ugu biiro Arsenal waa arin jirta marka Vinicius iyo Arsenal hoos way ka wada heshiiyeen isagoo heshiis shakhsiga oo ay wali aan la shaacinayo hoos kala gaaray la leeyahay marka Arsenal Vinicius ay helayaan nimankan marka suuqa way ku kacsan ayaga ruuxooda ciyaartoy badan ay daneynayaan muuqaalkii kan Korea ayaan ku sheegnay in Arsenal ka 2 milyan u gudbisay kooxda kubadda cagta Sporting marka laakiin arintu way isfurfuraysaa oo Arsenal waxa la leeyahay laacibka uu ku dhowdahay dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidii u soo baxday Ronaldo Araujo iyo Bayern Munchen arimaha ka dhaxeeya nimankan way fakareen markaan waxay suuqa ka doonteen لاعب دافع كعيارة إسلي كران وقدام بين أروقه ودين بدري كرا أما أروقه جوجبا من كان وسيه الإسيل لاعب كلهم دعوة اللي يراد روديو
Guernica لاعبkan Genoa ayuu u ciyaaraa video ayayna rabaan Barcelona inay soo qaataan keenana garoonka Camp Nou ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku ciyaarto. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta iyo xirtiisa waxay raadinayaan striker wax kala suuqa kama doonayaan. Inishas gacanta ay ku hayaan haddii aan laga dulqaadinba markan waxay u dhaqaaqeen weeraryahanka kooxda Bournemouth ninka la yiraahdo Dominic Solanke ayay rabaan inay Bournemouth kala heshiiyaan kana soo qaadaan. Ivan Toney waa targetkooda koowaad kama aysan bixin. لاعبka Sporting Lisbon hoos ay kala heshiiyeen ninka la yiraahdo Victoria haatan walow Chelsea ee tartanka ku soo biirto لاعبka ay raadinayaan ayagu striker ayaa u muhiimsan markan waxay aadeen strikerka lagu magacaabo Dominic Solanke oo u ciyaara Bournemouth ninkan xil ciyaareedkan qaab ciyaareed cajiib ayuu ku muujinayaa horyaalka Premier League asigoo ka caawinaya kooxda Bournemouth inay xil ciyaareedkan ku dhameystaan meel ka sareysa booska haatan ay joogaan. Dhinaca kale dagaalka loogu jiro Bruno Guimaraes ninka isbuuciyo ka hor heshiis u saxiixay kooxda Newcastle ay madaxiisa dul dhigtay 100 milyan markan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub Barcelona oo Lewandowski iibinaysa si u helaan Bruno Guimaraes iyo kooxda Liverpool oo لاعبka raadinaysa lagu daray City oo iyaduna rabta Bruno Guimaraes inay soo qaadato. Saddexdan kooxood ayaa madaxa isku jira Bruno Guimaraes ayay wada doonayaan. Barcelona iyadu waxay rabaan Guimaraes inay soo qaataan sidee Guimaraes ku heli lahaayeen waxay rabaan Lewandowski inay iibiyaan ciyaartoy kalena suuqa dhigaan lacagaha ka soo xarooda ee Bruno Guimaraes ku doontaan. Marka City lacag ayay hayaan Liverpoolna sidoo kale laakiinse لاعبkan isagu ayaa go'aanka gaari doona halka uu ku biirayo. Dhinaca iyo horyaalka Sacuudiga markan hadii aan eegnana Mohamed Salah ayaa dib u soo cusboonaaday wada hadalada ay kula jireen. Salah ayaa rabaan inay qandaraas waaliya halka iyo Sacuudiga u geeyaan. Mohamed Salah waa ninka dudka ku sita Liverpool waa ninka wax walba u sameynaya Jordan Klopp iyo xirtiisa mana ahan nin ay ka kaftamaan. Ninka reer Masar ayaa waxa la rabaa horyaalka Sacuudiga inuu shido oo halka uu ka ciyaaro. Marka Sacuudiga iyo Salah wada hadaladoodii dib ayay u soo noqdeen markaana waxaa la leeyahay لاعبkan dhinacay Sacuudiga ayuu u dhaqaaqi kara walow lacag fara badan halka loogu soo bandhigayo. Hadii aan muuqaalka hesho walaal garay kanalka subscribe noo sar goodbye.